weynaatay. Berigaa waxaa jiray dabaca iyo libaax baa soo noolaa. Waxay degnaayeen meel ayga. Meeshas waxa u dhawaa reer baa u dhawaa. Geel iyo ari baa reerka la joogay. Haddaba Cali baa maalin kasta waxa uu guriga qaban jiray reerkaas meesha ku dhow. Sayaanta dambe way furtay waxay tidhahdeen intaan reerkaas ariga neef ka soo cuno waa inaan tahaa libaax dambiga saara. Way tagtay neefta soo qaadatay way cuntay. Hadhowba guriga waxay timi libaaxii ayada wixii la neefsa. Libaaxii baa irnaa dabaca xagee ma ninka neefka ka soo cuntay. Markaas waxay tihi reerka xagis ku yaala xagis tegin ma aragtay haa. Intaan maanta tegay baa waxaan u qaaday xabad ooda baa u geeyey ay xawal ku hagaajistaan. Libaaxii baa intuu kusoo qiimay anna haddaan ooda geeyey may soo siinayaan. Dabacay batay haa way ku soo siinayaan oo lu qaad. Intuu iskiraafka taagay buuyey waliya haddaa dabacada kaa yarba ood bay geysay neef weyn bay soo siiyeen. Anna haddaa ood weyn usii geysay maxay kusoo siinayaan geel baa lagu soo siiyey. Saa intuu tagay geel weyn soo gooyey reerkii buu intuu tagay buu yiri geedkii weyn asigoo xagaan dhiga. Bisa reerka intaas ay gambadeen kan waygii neefka weyn xalay cunay intii la qabtay baa la bureeyey. Isagoo didiisan buu kasoo tagay meeshii. Bas maanta sheekadan intaas soo tahay. Kuna haddaa channelka ku cusubtay subscribe noo saar. Haddaan ka hesho videoga like noo saar. Musalsalka magaciisa waxaa la dhahaa Gurigii Madooba. Ninkan aragtaan waxaa la dhahaa Shakti. Wuxuu jecel yahay shayddaamada jimanka intuu dadka sax saaro iyo ruuxaamada. Ay keliya waryaa. Haddaba gabadhan aragtaan waxaa la dhahaa Kalanti. Waa ruuxaan waxay rabtaa intay aargoosato. Gabadhan kalena waa faalalowad ayna shayddaamada qabataa. Haddaba asxaabta waxaa is weydiinaysaa gabadhan waxay u aargoosanaysaa waxay rabto. Rabadaantaad kala socda YouTube-kan insha Allah. Waqtigan anaa idiin soo sheegay la soo daaniyo. Halka qayb waxay soconaysaa 1 saac.